anoo ka faa'iideysanaya fursaddan qaaliga maanta shirka maanta halkaas ay nimankaasi go'aamada ka soo saareen ama ay ku dhaqaaqeen waa godkii madoobaa oo Soomaaliya ay ku jidhay 27 sano dib in loogu celiyo maantana waxaa muuqda iftiin qurux badan oo dawladda Soomaaliyeed ama rajo laga qabo in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan garab istaagaan ama taageerada u muujiyaan nin walbana wuu og yahay ayaguna waxay rabaan in sidii 27 sano inay dib inoo ku celiyaan oo fikirkii ay hore u qabeen inoo la yimaadaan oo canshuurta waxay ku sheegi jireen oo dadka shacabka lagu dhibaateynayay oo in aan wax loogu qabanay la ka qaado oo dayacii iyo burburkii Soomaaliya ay ku jidhay dib inoo ku hayaan waxaana soo dirsaday baan ugu aaminsanahay dad aan Soomaaliya jiritaankeeda ogolayn doonayna inay meeshii madoobeed Soomaaliya ka muuqato haddiinu marka maanta doonayno dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin maskaxdooda shaqaynaysa inuu nahay oo inuu ka fikirayno aayaheena iyo jiilkeena soo socda meeshii ku jahan lahaayeen waxaan anigu aaminsanahay in laga hortago xaasidkaas aan lana ogolaan waxyaalaha shirarka oo halka lagu qabanayo waxa ay ku hanjabayaan ama dawladda federaalka ugu hanjabayaan ku goodamayaan waa dadkeena shacabka Cabdiweli inagu inay ka tagay xaaf qolow ka yimi oo Soomaaliyeed dhammaan dad Soomaaliyeed bay ku wada hanjabayaan ku go'aaftamayaan dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeen in awood ay u iska leeyihiin ciiday doonaan diri karaan ciiday doonaan u yeeran karaan marka waxaan doonaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gobol kasta ku noolaadeen in cadownimada dhaxolayn qabiilkana ayagu ay galiyeen wax dagaalamaya aysan jirin dadka Soomaaliyeedna gobolka tigtigba ay ku soo dhaweynayaan oo yaa taan cid ku oranayn laakiin waxa kala tilmaamo kala sheegaa in ayaga yihiin maantana ay u baahannahay inaan iska garabsano oo ka hortagno waxa ay wadaaneen innaga awood wadanka u ah innaga dawladnimada ah innaga shacabka wadanka ah adduunka haday roodhiya hal sentiyo lagu daraa adduunka oo dhan dawladdan gilitaa madaxdeedu marka dama caradhaa in laga dhimo maahe aan madaxdaas wadanka iska cararaysa innagana wadankeeniba godmidow ku jiro lagu gurayaa aynan ka hadli karin dhimirka marka miyaynu la'ana dad wax garanaya miyaynan ahayn dad maskaxdooda shaqaynaysa mooyna ahayn innaga dhalinyaro wadanka u ah maanta Cabdiweli Ali Gaas iyo madaxdii ka horeysay ama maamul gobolka ka tabaadeen wadanka halkii bil waxay soo galiyaan inta oo rasaas iyo intaas oo huba innagana leeynoo dhiibaa qalin iyo buug bay wataaneen qaabka inoo maamulayaan nafteeda ka shaqeeyaan godka madow inuu ku waan maxay tahay hal subax hadii inaan jooji waxa wadid subaxdii ay boorka ka duub wallahi inuu sii joogi karin gobol kasta mid kasta ka yimaado waxa uu ku dhaaranayaan federaalka ugu hanjabayaan waa innaga inuu nagu taageero muujino federaalka taageero u muujino oo god madow baan ka soo baxnay idinka Alle ku celi Alle ku celin daraahno oo nin walba gobolku ka yimid la yiraahdo hadaa ku soo noqotay inuu ku soo gaaro mas'uul Allah ka meesha ka timiye meesha aad ku dhaaranaysa aad waxaan aaminsanahay inaynu dawlad Soomaaliyeed awood loo caalamka ka gorgortami karno inuu yeelanayno maantana waynu aragnaado geeska Afrikaba madaxweynihii Soomaaliya hogaamiyaba kaba ah igad buu heshiisiinaya afarta beershu maraya waad ogtihiin Afrika madaxdeedii 55 dawladood weeyii Afrika waxay isugu talagashay China hadii la ku rooyahay kaligiisa gaar loo qaabila war maxaa samacada ay loo diiday inuu maanta yeelano maxay loo diiday inuu naano madaxweyne isaga noo waxay loo diiday inuu diidno wax maamul goboleedyadu wadaan waxay loo diiday nimanka madaxda ay ku sheegu kan sheegaya inaan annaga ay nagu dhaarano annagana metelin codkiina aan dib uga noqonnay dadka Soomaaliyeed fursad aan ka faa'iideysanaya meel kasta ay joogaan waa dad walaala waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan gacmaha isqabsadaan kana hortagaan waxyaalaha noocaas oo dhibaatada iyo godka madow ku haynaya